بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدى الصوماليات مeel kastoo adduunyada aad joogtaan waa idin salaamahaya. waxyaalo waxaa jira in dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka shaqayso waxyaalaha cadaaladana kama shaqayso, laakiin markii ay rabto inay qabiilooyinka Soomaaliyeed ay wax u dhibto ama ay rabto inay ololeyso ama rag ayaga kamida la rabo in la qaarijiyo, waxa la soo idmahayaa dadka asaga ka waana qaata oo jeebka ugu jiro. Marka anigu waxaan ka digahayaa in la iska ilaaliyo waxa socda hadeertaan. waxa socda hadeertaan waxay nii sheegayaa magaalada waxa ka dhacay dhibaatooyin badan baa ka dhacday. gabar dhan oo magaca hawiye curadkoodii ahayd oo high school ka baxday oo jaamacad iska soo qortay ayaa 5 wiil iyo 6 wiil oo mareexaana intay kufsadeen ay fuuleen ayay dabaqa ugu sareeyay ay ka soo tuureen. marka waxaan inuu weyn ula jeedada laga leeyahay maanta in la yiraaho oo la hadlo ra'iisul wasaaraha sheeganaya in uu ka soo jeedo Kismaayo ay og yihiin iyo madaxweynaha Galmudug Qorqor oo la leeyahay waxaan ka rabaa cid reer Galmudug waa inaad mashquulisaa birkay waxaan dileynaa ninkii la dhahayay Ciidid oo wuxuu dilay wasiirkii nin wasiiroo dilay. yes saasa la yiri waa la yiri wax la huba male maaha. marka cidda uu ka dhashay anigu waxaan kala talinayaa in cadaaladda dadku ay wada sinaadaan. wiilku waa kaasa wiilka uu rabo maanta inuu dilo maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku magac raadsado oo ka kicin doono dagaal xoog leh oo asaga looga soo horjeedo. marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sheekadaanu waxa la yiri faanoola farqama qodnaa la yiri farmaajo inuu kuwiisana dhoofiyo oo Kenya ka daadiyo oo gabar hawiya ay kufsadeen ay dileen ay ka soo tuureen dabaqa lixaad kuwa kaleetana uu yiraaho tiirkan geynaya. hadda waxa weeyaan walaal nasabnimadii la isdheeraadaan u maleynayaa. wiilkana waxaan ogahay dad magac iyo nasab leh oo qowl leh inuu ka soo jeedo. marka waxaan leeyahay ama dilka dadka laga wada simo ama lama dili karo. haddii la dilana waa wax loogu talagalay in xiniyaha reer Galmudug la qabto oo ma aragtay la tuso Galmudug inayna waxba ahayn cidda habargidir. waxaa lagu amray Qorqor in uu ma aragtay uu sameeyo baadhi iyo faysto saynan u tabin dilka ninkaanu ku mashquuli dhismaha iyo dhulalka aad maraysid waa inaad ku mashquulisaa ayaa la yiri. in la dilaa la rabaa wiilkoodii. wiilkaanu waa la xukumi waa la xukumi karaa balkee waa ciilka waxa iga keenaya hadallada marka ciilku ka bato wax kasta oo iska dhaafayaan. marka waxa weeyaan farmaajo ama cadaaladda si fiican ha uga shaqeeyo oo ummadda Soomaaliyeed cadaaladda ha ka simo. idageysta ama cadaaladda ha ka simo Soomaalida ama farmaajo quuqda oo kursiga la fadhiya dilla Soomaaliya ha joojiyo. ha keeno 6 wiil oo gabadha dishay oo kufsatay oo dishay nimanka dadka dilay kulli tiirka la wada keeno. why this guy? why him? sabab maxay tahay asaga? barkee ula jeedadu maxay tahay? barkwala motiva sababtu maxay tahay asaga tiirka ay ku geynaysid oo kuwii gabadha kufsaday oo mareexaan aad ku sii daysay ya oo raxwaan iyo xawaadlaan shaqo ku leeyahay aad u xirxirtay. wariyaa who you yaad isku malaysa maxamed cabdullaahi farmaajo kisaytu ma ilaahaygiina unta nafta la gashadaya. who you maxaa tahay adigu? you are nothing. anaa runta kuu sheegaya maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumaddu sharcigu waa equal for everybody. anaa runta kuu sheegaya sharciga waa laga wada siman yahay. no inaad kuwaadana dayso masruufto kuwii waqooyi dilana Itaaliya aad ku biisho aad tiraaho iska dhiib oo ay wataan baasaboorro aan ognahay meesha Suuriya ay kala soo tageen oo aad ku masruufaysid Itaaliya dadkii waqooyi baabi'iyay aad tiri soo galo Talyaaniga jooga oo aad ku masruufto mushaar u qaadato guri aad u ijaartay shacabka Soomaaliyeed oo hawiye canshuurta laga qaadayo ayaad nimanka tolkaaya oo adeerka la shaqeynayo dilaaga weyn ahaa ya oo adiguna maanta aad dilaa weyn tahay ayaad waxaad keentay inaad dastuurka iyo sharciga Soomaaliya aad ku tumato. maxaa tahay adigu? you are nothing farmaajo. adiga iyo eyga biyaha cabaay waxba isku makaay dhaantaan. anaa runta kuu sheegay af laga xishoodo maliis adigu adoo kale laga ma xishoodo. maxaad ku tiri Qorqor dhismayaasha iyo waxa socda ku mashquuli baadhi dhig dhismayaasha soo dhaweey علشان عيديد دليناي si ayna dadku u ogaanin Ciidid maalintii la dilo Galmudug habar gidir god intaad qodataan istuuga barkay xiniyihiin soo hubsaday maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ogaaday cidda habar gidir inayna ba'na ahayn ta'na ahayn
dhalinyarada la yidhaaho waa gacan ku dhiig la aniga diyaaraan u ahay in tiirka la geeyo laakiin waa in sharciga islaamka iyo sharciga soomaaliyaba equal laga noqdaa equal in laga noqdo weeyaan in kuwa mareexaanna la sii daayo kuwa hawiyana tiirka la geeyo markaasaa waxaa ka doonaysaa soomaaliya inaad madaxweyne mar labaad ka noqoto oo aad ku soo noqoto adoo qaa'inul waddan ah adoo tuug ah adoo been ku soo galay oo yidhi nabadoon baan noqonahayaa baabuurta waaweyn baan dabada ka qabsanaya oon ognahay waxa aad waddo maantay iyo sharadka aad la gashay waddanka maaragtay khayraadkiisa iyo qadarka ya ay qadar ku tiri kursigan kugu ilaalinaya qadar ma iska lahan soomaali baa iskale futadaana farmaajo shaankuula lagaaga dhufanaya 7 nacaladood oo timid oo naarka kulawna allah kugu soo tuuree bad u xuntaayaan kule you are very disgusting president baatay oriya sharciga dadka u sin equal ka dhig wariya sharciga dadka equal ka dhig lixdi mareexan soo qabo ninka hotelka la soo qabo kulli tiirka u gey gabadha wiye kana dila hala mashquuliyo galmudug adiga iyo ra'iisul wasaaraha what you talking about maxay tahay waxa mashquulinaysid adiga you are crazy waan ogaa inaad tahay crazy we know inaad tahay crazy farmaajo maamulna ma taqaanid rag baa kuu haya xirsiga iyo sixirka iyo waxa aad ku dhaqmaysid ilaahay waxaan kaaga baryay inuu kugu gubo oo naarta kululna jahannamana allah kugu tuuree abargidirey haddii wiilkiina la dilo maanta tiirka la geeyo waxaad ogaataan ya oo raalli ka noqda wiilka Kismaayo ku dhashay oo la leeyahay maxamed xuseen rooble oo ayaan dhaweyta ogaadeen ku sheeganayeen yaqaanaan anigu I don't know waxa laga sheegayo laakiin waxaan sheegayaa waxa laga la tashaday qorqor iyo rooble waa laba nin oo la yiri waa habar gidir ayaa waxay tiirka geey doonaan wiilkaas u dhashay beeshaas oo regal muduga haddii la geeyana noloshaad ka dhacday be careful ahaada balkee waxyaalaha kale soo socdana waa inii sheegayaa oo farmaajo xalay ku hadlay wuxuu yiri nin caada qaata ah oo nolosha ka dhacay buu yiri sida qorqor oo kaleeto oo Saleemaan ah waa sida asagu yiri anigu in dhigi maayo aniga reexaji inta iga saarintii waad ogtiin anigu adinka ku soo xadgudbayn laakiin wuxuu yiri nin yah idaho ayaan rabaa oo Saleemaan ah oo aan naxaynin oo sacad ka taqalusan rabaa aan ka dhigo wasiirka arrimaha gudaha xalay ayuu go'aankaasna gaaray farmaajo nin Saleemaan ah oo cidda regal mudug degta ii xasuuqa ayaan rabaa waan la isku baaba'aya maalintuu keeno sima yasman oo qarfaani oo yahay kii hore ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo kale qarfaan meed magaciisu oo kale markii la keeno oo aan naxaynin uu yiri oo sacad shafaaliya oo dabada ka mara ayaan u baahan uu yiri waxaan rabaa inaan ka taqaluso yiri cidda sacad la leeyahay idageysta 3 sano ku dhaarnaya aniga sheekadu aniga iso gaartaa bila Soomaaliya been inii sheegayo ma fahamtay marka waxa inii sheegayaa in uu ku taagan yahay inuu waxaas inuu sameeyo rabo maanta marka uu saaka la hadlaayeen wuxuu yiri waxaan ka rabaa qorqor in aad cidaan galmudug aad saas iskaga daba wareejiso dadkaada oo aad dhigto faysto si ay faystada biis ugu noqdaan si dilka ninka tiirka la geynayo ee nunu ogaanin adiga iyo ra'iisul wasaare rooblaba waxaan rabaa in saas iskaga daba wareegtaan uu yiri oo aad kala wareejisaan dadka marka waxa inii sheegayaa anigu I know yarku inuu habar gidir yahay qolo uu ka yahayna ma aqaan laakiin one thing inuu hawiye yahay waa ogaa anu kala saareen 6 nin oo nin hotel ku leh ijaartay gabar islaameed oo 18 jir fuulo kufsaday oo sarka soo tuuray ayuu farmaajo lama bari wuxuu ku hayay dila Soomaaliya tigidhadii canshuurtii wadanka laga gurhayay ayaa fiber loogu sameeyay alashaan waa la miiraad saweeyaan ayuu ka dhigay maxamed cabdullaahi farmaajo is my own family weeyaan waa mareexaan maxamed cabdullaahi farmaajo president Soomaaliya ayaa kelmadaas yiri laka bacdina baasaboorradoodii 2 jeer 3 loo kala diray waxa loo diray magaalada Nairobi joogan yaa loo xiray niman xawaadla iyo waxa loo xiray niman raxweyn okay sharciga farmaajo uu ku fadhiyo kursiga sharcigu guriga hooyadii aabihii kala yimid maaha wadankan dastuur baa lagu joogaa ninkaan nin ma dilay waa ku jirayaa xabsiga 25 sano waqtiga rabtaa ku qaadato waa ku jirayaa
asoo dhalinyara ma la xire ha ku jiro laakiin midaan kuu sheegahaya oo farmaajo waxaad ka dhigaysaa equal sharciga in loo siman yahay lowga Soomaaliya equal inay Soomaali u tahay ama la dastuurka Soomaaliya in equal loo yahay ama la legida la Soomaaliya ya in equal loo yahay ayaad ka dhigaysaa yo mafia tahay anagu waa ku naqaanaa waxaad rabtaa ciidaha Soomaaliyeed inaad dhiigooda karkariso inaad isku dirto in dabada karbaash sida lagaaga wado qoorta lagaa gooyo taasay raadinaysaa adiga laakiin midaad ogaanaysaa wax ku darsasho ma jirto soo noqosho ma jirto taas oo ka tashan kartaa maxkamadna waa lagu soo istaajinaya xiniyo ma leedahay ma dili kartaa maanta waxaan haynaa 6 wiil masawiradoodii oo mareexaan waxaan u dirnay Belgiumka kana waa la dirayaa meel kasta la geenaya inaad dadka adiga your own family your own la tuwaratsa inaadan dilin ay dadka dilaan ay kufsadaan ay sameeyaan mataqaanaa naagaha ay ma aragtay loogi iyo sharcigi iyo traditionki wadanka ay ku xadgudbeen intaad madaxweyne wadanka ka tahay oo gabdhihii kufsi ilmiina hal xada aad tiri is you on aday ka soo baxday hadalladaas maxamed cabdullaahi farmaajo ka soo baxday laakiin faamilada kale wiilashooda tiirkan wada geynaya is impossible farmaajo wax la qaadan kara maahan wax laga yeelahayna maahan we know waxa aad wado iyo ulajeedada aad wado ciidamada aad soo daldalaysid iyo December aad leedahay we know everything wala la dhacsan yahay waxaan ogoo kaleeto inuu yiri qadar waxay tiri bal fiiri waxa ku cadeynaysa Fahd Yaasiin inuu muwaadin Soomaaliyeed oo ahayn oo qaatay sharci qadariyana waxa yiri qadar ayaa waxaan rabnaa inay dhaqaalaha wadanka Soomaaliyeed gacanta ku qabato waa laba nin oo aan matali karin Soomaaliya waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Faris one sikin wa Fahd Yaasiin on Soomaaliya matali karin oo ku jira dhil ay qadar Soomaaliya gacanta ugu galiyaan qadarna dad kale dhabarka ku wadataa Soomaaliya waxay noqotay 218 aan ka sheekeynayay oo mafiyada adduunka oo dhax fadhida xalana waxaan u baahanahay in la faraaqeeyo immediately waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed haddaad xiniyo leediin nin iyo naag ilaa 7 jirkiinu qof inuuna ka harin farmaajo iyo Fahd Yaasiin iyo wax allaaleeyahay waxa degan meesha la leeyahay xalana in aad ka saartaan tuugada dilaaga oo Yurub ka soo carartay iyo Mareykan ayaa inay ku jirta wax ay ka yihiin mala Soomaaliya inay dhaqaalihiina kaliya xadaan ay meeshaas ay ayakuna ka helaan sheer ila waa kuwa Afrika oo dhan marada kala baxay wadamada Afrika oo dhan soo ma ogidin tiina Soomaaliya ku tahay wuu ka balan qaaday farmaajo marka waxaan rabnaa hadda sheekadu aad ay u xuntay u kulushaa farmaajo wuxuu keeni doonaa ilmaadeeradiis ya oo istasaraad asaga ah oo keenahaya oo the same family ga asagoo ka dhashay markaas kantiirka la geynahaya waana wax lagu kala dhimanayo lagu kala tagayo taas waa inay ogaataan Soomaali Maxamed legi iguale for everybody lowga waa loo siman yahay everybody waa u simanna farmaajo inuu yira kalan dila kuwayna diyaaradan saara Nairobi geeyna intee ka imaadaadu maragga hawiye ayaa noloshii ka dhacay oo xiniyii aad ka tuntay waa ku xishmadaynayna kaliya maahane inaad injiro tahay waa ku ognahay inaad Soomaali dhalada ahayn ankay waa ku ognahay because you know why waxaan kuugu ognahay is my brother naagti fanaanada aheedoo dhimatay ilaahay naxariisti janna firdaws ha siiye ya ayaad waxaad samaysay meydkeeda inay naaga gacanta ku qaadaan oo aad tiri qof fanaana ma daba gali karo qaa'inul wadan baa tahay adeerka iyo mareexaan inaad kulligood maxkamadda saarto aad qoorta ka wada goysa waay ya inaad tagtid qabriga maxamed saad barre inaad soo gubtid waay inta naag fanaanada oo wadankeeda iyo ciideeda joogtay calankeeda aad leedahay meedkeeda gacanta ku qaata waryaa amarka adeerka baa bixiyay adna adeerka waxba ma dhaaftide laba carab la tahay waa ku naqaanaa maskaxdaadu laba carab la kugu jirta maskaxdana dhinacna biya ka fadhiya dhinacna maskaxda shaqeynayna ka fadhida marka ragga hadalka kugu yiri haday aqli leeyihiin fidna inda geel adeerka ay ka socotay waxaad ku diiday naagta fanaanada in xalaal lagu duugo oo calankeeda wadaniyada eeda lagu duugo maxay ahayd adoo kale Paul shit baa tahay aan ku leeyahay waan naqaanaa ragga adoo kale awood malid sharafna magalid Soomaaliya magacna kamalid maxamed cabdullaahi farmaajo I told through in other Soomaaliya you are nothing at ka tahay aadan sharciga iyo dastuurka Soomaaliyeed aadan dhowrin diinta islaamkana aadan dhowrin waa ku naqaanaa because we know ina maxamed cabdullaahi farmaajo Christian tahay adigu
we know everybody know oo qurbaha kula jooga waa la wada socdaa qurba joog oo dhan baa ku waxaan ka rabaa xiniyaha taabo maantay waxaa la yiri nin loo waaya la yiri nacla abiyi iyo hooyadii ku yaala odayaasha hawiyo nolosha ka dhacay iyo kuwa reer galmudug oo nolosha ka dhaco magaca habar gidir wata waa kana wiilkeeni asagu ilmaadaradiisii waa faksaday adiga taada tiirka la geynaya musuq maasuq hooyadii iyo aabihii waa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan isku arkaynaa facebooka youtube-ka hala share gareeyo for everybody ina gaarsiisaan nin kasta oo dhiig leh oo hawiyaan waa inuu kacaa haddaa jiiftayna ka hurdada ka kac haddaa fadhidayna fadhiga ka kac farmaajo waa in gacan kulul la iskaga qabtaa asaga iyo dadka balwada leh oo villa marqan ka buuxo dhan oo asaga la taliya iyo kuwa talyaaniga oo ku masruufaya waa in laga qabtaa wadanka waa inay salaam calaykum wa rahmatullah wa barakaatu shacabka Soomaaliyeed